السلام عليكم ورحمة الله ومعلم محمد وإذن الله سود وهذا arday maanta waa maalintii exercise-ka ama activities-ka waxaan ku bilaabaynaa cashirkii ugu horeeyay qaadanay activity-giisa oo ahaa alphabet-ka waxaad haysataa sad arkaysaan waxa kan alphabet-kii isku dhaxyaacsan marka insha Allah wax lidinka doonayo waa maxay maanta inaad alphabet-ka xafaysaan oo sidii saxnayd ay isku toosnayd oo soo qortaan iskuna daynaadan meelna ka eegan oo yani dushaad ka qorto insha Allah oo yani istijaabiso aqoontaada istijaabiso marka alphabet-kan ayaad dusha ka soo qoraysaa kadib maxaad mobilkaaga ama buugad ku qoraysaa sawir ayaad ka soo qaadaysaa insha Allah kadibna jawaabta waxaad noogu soo diri doontaa insha Allah telegramka ama maxaa hadla meeshan cashirada kaaga soo dirno iskuna day inaadan dhinaca caawinaad weydiisan insha Allah marka wixii jawaaba ana idin soo socodsiinay insha Allah si saxan okay qaybtan kalena waa qayb kamida alphabet-ka oo iyadana waxay tahay waxaan haysanaa alphabet-kiiyo nooc kala laakiin markan waa maxay markan waxaa maqan qayb ayaa naga maqan sadar walba sadarka kale uu ka madax bannaan yahay oo isku xidhna alphabet-ku oo in isku xirayna moodin isku xidhna kulligood sadar walba sadar kale uu ka madax bannaan yahay sadarkan inta erey ka maqan bad ku buuxinaysaa kadib ka dambaad u gudbaysaa alphabet-ku isku xidhna sadar walba asaga madax bannaan sadar walba gooni uu isku xidhan yahay laakiin sadarka kale ku xidhan ma laha okay a wixii ku xigaad sheegaysaa xagga gelinaysaa d wixii ku xigay f wixii ku xigay okay m wixii ku xigay o labadii erey ku xigay d e wixii ku xigay h wixii ku xigay s shay ku xigay ama xarafii ku xigay u xarafii ku xigay x xarafii ku xigay marka xaraf walba meeshii ku munaasibka ay ku buuxinaysaa ama xarafka maqan ayaad insha Allah ayaad meeshiisa ku buuxin doontaa sida ayaan ku sahameysaa kuwan okay insha Allah like jawaab sidaan idin sheegay waxaad ku soo diri doontaan sawiranta ka soo qaataan waxaad qortaan aad waxaad ku soo diri doontaan insha Allah nagu soo diri doontaan telegramkeena insha Allah jawaabaha saxanaana soo gudbin doonaa insha Allah okay qaybtan waxay tahay waxaad go'aansanaysaa yani waxaan haysanaa xaggan sawir ayaan haysanaa sawir walba waxaa hor yaala laba erey ama laba xaraf ayaa laba erey baa hoos yaala oo laba pronoun okay waxaan hor soo qaadanaa waxaa ma maxay he is she waxay kala yihiin soo qaadanay waxa loo isticmaalo marka sawirkaad eegaysaa waxaad eegaysaa sawirba labada erey keebuu qaadanaya ma isagu qaadanaya mise iyada he waa maxay isaga she waa maxay iyada okay sawirka eeg mid walba ku qaadanayo hoosta ka calaamadii insha Allah markaad hoos ka calaamayso ama waxa soo qori kartaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wala bay toban somaha inta 12 lambar samaysato ayad lambar walba waxaad ku qori kartaa maxay kii uu noqonayay anna fiido sharxayaan soo diri doona insha Allah oo kan caadi uga jawaabayo su'aalihii caadi uga jawaabayo okay qaybta ugu dambaysa exercise-keena waa maxay qaybta ugu dambaysa exercise-keena waxay ku saabsan tahay he she his iyo her he oo ahaa isaga she oo ahayd iyada his oo ahayd wuxuu qof karagaa leeyahay and her oo ahayd waxay qofka ama gabadha dumarka ay leedahay soo maaha xaggan waxaan samayn doonaa ardaydan magacyadooda ayaan raadin doonaa marka hore waa exercise koowaad oo hadda Emma ka koowaad anaga kaaga shaqaynay waa number 1 Emma soo saarnay magaceedu yahay waa ka xariijinta aad raaxaysaa ilaa aad xaga ka tagto marka lead ka baxaan bad saw ku soo helaysaa okay marka qofka magaciisa hesho ayaad eegaysaa ma inaan baamiso aynan okay kadib ayaad siinaysaa okay waxaan ka doonayaa mar walba inaad labadaas yaabood magaciisa u sheegto okay number 1 waxaad oran kartaa maxay iyadu magaceedu waa Emma iyo iyadu waa Emma okay magaceedu waa Emma iyo gabadhani waa Emma okay labadaas badana u tilaaban ka doonaya her name or his name ina tiraado he is or she is ina tiraado ka doonaya okay shanta magacay kale haray u soo raadi insha Allah and video kan cashirka sharxi doona soo diri doona sorry ama exercise ka jawaabi doona ayaan soo diri doona insha Allah laakiin jawaabihiina marka hore soo dira si aan u arko oo ogaado intaad horumar sameeysan isbuucan soo dhaafay